kalsoonidu waa shay cajiib ah shayga qofka bini aadamku ictiqaadanaha ilaahay nafcigu u dhaxmariyaa baa leeyahay walow shaygaasi haba noqdo shay beenaba ha noqdee nin reer baadiye ah yaa magaalo soo galay oo bukooday oo dhakhtarka la geeyey xogaha kaniin baa la soo siiyey kaniinka xumadda iyo qandhada dadka reemigu dawo afka laga isticmaalo ma yaqaanaan waxay yaqaanaan ay caqiidaysan yihiin wadaad u tago qardhaas u qoro qardhaas waa taqaanaan baan u malayn xirsi waa tiraahdaa qardhaas dadna meelahan ku xidhaan oo iska bogsadaan marka kaniinkii la soo siiyey bacyar buu ku xidhxidhay inuu isticmaalay baa la mooday maalintii dambe la waraysto lagu yidhi war bal ma ladnaato dawadii ma qaadatay haa dawadii ilaahay waa igu shaafiyey oo adoo cunayaba laguma arkine cunaya ah wax la cuna aanu ma arkine bacdii yarayd iyo wixii ku jirayba maraan ku duuduubto halkan aan ku xidho ilaahay waa igu shaafiyey wallo fiirso yaqiintu waa cajiib qofku hadduu shayga yaqiin u qaata baa layidhi walow shaygaasi haba noqdo shay asaxayn ilaahay uu ku imtixaabaa manfaco baa ilaahay kuu soo dhex gelin wixii bini aadamku ay sameeyeen ayaa dadku maanta ku kalsoon yihiin maxaan ugu kalsoonaan weyne warka ilaahay warka nebigu noo sheegeen sal alla alay wasalam nin baa nebiga u yimid oo yidhi xalaytoole dabaqalooc baa i qaniinay laxawgiisiiba ka seexan lahaa ama inaka low qulta acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq lam yaduruka baa nebigu haddaad odhan lahayd kelmaddaasi xilligaad galabaysatay acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari intaasun haddaad odhan lahayd buu nebigu ku yidhi kumaba dhibeenba waxba kaama qaadeenba khabarka nebi maxamed uu noo sheegaayo calayhi salaatu wasalaam khabar la jarrabay maaha waa khabar yaqiiniya yaqiin waa maxay wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa halkaan maanta ka liidana bay culimmadu leeyihiin waa kalsoonidaas